tababarkan uu soo diyaariyay xafiiska shaqaalaha iyo arrimaha bulshada ee dowladda deegaanka Soomaalida ayna ka soo qayb galeen shaqaalaha u shaqeeya shirkadaha ku yaala magaalada Jigjiga ee xarunta deegaanka ayaa ujeedada tababarkan waxa uu ahaa xaq lagu leeyahay shaqaalaha iyo waliba xaq waxay u leeyihiin. haddaba furitaankii tababarkan ayaa waxaa ka hadlay wasiir ku-xigeenka xafiiska shaqaalaha iyo arrimaha bulshada ee dowladda deegaanka Soomaalida mudane Cabdiwali Ibraahim Maxamed. hadaladiisina waxaa ka mid ahaa xafiiska arrimaha shaqaalaha iyo arrimaha bulshada ayaa wuxuu idin diyaariyay cashiro loogu talagalay in lagu kobciyo garaadkiina aqooneed taas oo ku qeexan bayaanada kala duwan ee boolisiga u yaala xafiiska ama dalka u yaala shaqeeyaha iyo loo shaqeeyaha. tusaale ahaan 377 isbaara 2003 qodobka ama bayaanka wuxuu sheegayaa xuquuqda iyo waajibaadka uu leeyahay qofka shaqaalaha waxaa loo baahan yahay inuu garanayo waajibaadka saaran marka ugu horeysa. maxaa waajibada ku saaran? maxay tahay in adeegood bixiso? maxaad kor u qaadi kartaa shaqadaada? kadibna wuxuu u baahan yahay inuu barto xuquuqda uu leeyahay isaguna. sidaa darteed waxaa la idin soo diyaariyay agaasimada xafiiska ama garwanaanada xafiiska waxay idin soo diyaariyeen cashiro muhiim ah oo loogu talagalay in la idinku baro xuquuqdiina iyo waajibaadkiina si aad adeeg hufan aad u bixisaan. dhankiisana agaasinka shaqada ee xafiiska shaqaalaha iyo arrimaha bulshada ee dowladda deegaanka Soomaalida mudane Nuuriye Cabdilaahi Khaliif oo isna dhankiisa aynu warays la yeelanay ayaa waxa uu sheegay ujeedada tababarkani loo qabtay isla markaana faahfaahin buuxda naga siiyay ujeedada tababarkani. aan la soconay maalin dhaweyd waxaan tababar qabanay loo shaqeeyaasha deegaanka ka jira si iyaguna xuquuqda saaran iyo maaragtay xuquuqda u saaran dadka ay maamulaan shaqaalahaas ay maaragtay xuquuqdooda sugaan oo siinay. maantana waxaan xaggan tababar kaas ku lamida aan u qabanay shaqaalaha u shaqeeya kambaniyada kala duwan ee adeega bixiya. waxaan ku siinaynay haddaan ka taabto shaqaalahan tababarkan waxaan ku siinaynay sidii waajibaadkooda markay gartaan iyaguna xuquuqdooda u weydiin lahayn ama xuquuqdooda u garan lahayn ayaanu siinaynay. waan ku siinaynay bayaankan tirsigiisu yahay 377 shaqaalaha iyo loo shaqeeyaha. ugu dambeyntii ayaa ka soo qaybgalayaashii tababarkan oo iyaguna la hadlay telefishinka caalamiga ee SRTV waxa ay sheegeen soona dhaweeyeen tababarkani isla markaana waxa ay sheegeen in tababarkani uu faa'iido weyn u leeyahay isla markaana ay gaarsiin doonaan goobihii ay ka kala yimaadeen. horta aad baan ugu mahadnaqanaa xagga waxaan isku baranay dad walaalahaya dad mataqaana dilaadhay mataqaana aqoon ah hada hor aan isku lahayn hadda ka war barnaamij lamida lama soo mar laakiin waa first one waa kii ugu horeeyay in loo qabto oo soo dhaweynaya wiilkuma maan leeyahay. waan shaqaalaha hoosaadka waxaan nahay saaka nadiifsada shirkadii mustaqbal ayaan nahay si fiican baan waajibka iyaga u gudanaa. horta xafiiska maanta la keenay ee aad u qiimihiisa qaayaha badan ee shaqaalaha qiimale aan ugu nimid aad baan ugu mahadcelinaynaa. tababarkani xafiiska shaqaalaha iyo arrimaha bulshada ay u qabteen shaqaalaha ka shaqeeya shirkadaha kala duwan ee ku yaala magaalada Jigjiga ayaa waxa uu tababar ay ku baranayeen xaq ay leeyihiin iyo waliba xaq ay ku leeyihiin mulkiilayaasha ay u shaqeeyaan. haddaba tababarkan ayaa mid soconaya muddo hal maalina marka uu soo gabagaboona waxaa la filayaa inay ka soo baxaan arrimo muhiim u ah shaqaalaha ka shaqeeya shirkadaha. Cabdiwali Maxamed Cali, SRTV, magaalada Jigjiga.